القصص لعلهم يتفكرون. الحمد لله ثم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى أيين مهدنينا mahadoo dhan allah ayay u sugnaatay. allihii noo suurtageliyey inaynu mar kala kulanno. alxamdulilah uma alxamdulilah. haddaba waxaan idin wadaa maanta arrin cajiib ah. koobkaada shah soo shuba. arrin cajiib ah ayaan idin wadaa. shahaada soo shuba, isoo garab dhig, qisada say ay kugu baxda macnaha. soo dhawaada, waa idin soo dhaweynayaa. haddaba maxay tahay qisada? nabigeeni sala allahu calayhi wasalam ku salla xabiibkeeni sala allahu calayhi wasalam. ninkii hal mar igu saliy toban jeer oo ilaahay ku salina u leeyahay rasuulka sal alay. marka salliga nabiga waa aada iyo aaday muhiim u tahay. maalin maalmaha ka mid ah, nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa oo wada socda ayaa waxay soo mareen neef orgi ah oo bakti ah. neefkii orgi ah baktiga ahaa oo dhegihiisana ay yaryaryihiin. waa neef orgi ah bakti ah wuu dhega yaryar. haddana nabiga sala allahu calayhi wasalam wuu qaaday neefkii. yaa iiga iibsani neefkan orgigii ah baktiga ah dhegihiis ay saan u yaalaan, yaa iiga iibsani. ikhwaani fillah, dhowr shay waa muhiim inaad ogaatid intaan qisada ku talax tegin. ilaan qisada markay macaan badan tahay aniga waan is iloobaa, moogtahay, waa ku talax tagaa. marka intaanan dhex muquuranin qisada, dhowr shay waa muhiim inaad ogaatid. midda ugu horeysa, neefka nebiga uu naadinayo waa bakti. kow, waa muhiim inaad ogaatid neef orgi ah oo bakti ah weeyaan wax nabigu u naadinayo. waa bakti kow. midda labaad waa orgi. orgi ma dhala sheekh, orgi ma dhala. maanta suuqa haddaad aado walaalayaal ood rabtid neef inaad soo gadatid, neefkaasna aad ka rabtid taran inuu kuu tarmayo, neef orgi miyaad soo gadanaysaa? waa maya. waxaad soo gadanaysaa neef dhadig ah, ri ayaad soo gadanaysaa. neefkan rida ah faa-iidooyin fara badan ayaa ku jira. hilib horta waa kuu galaa kow. haddaad hilib u baahan tahay, rida waad qalan kartaa. midda labaad, way dhalaysaa. oo taran haddaad ka rabtidna tarankeeda wuu badan yahay. midda saddexaad, caanaad ka helaysaa, waad maalinaysaa. orgiga u imaado. orgiga hilib ma ogii wax kaloo faa-iido lagu qabshay waa kaas. isaga waxaa un loo soo gadanayaa in la cuno, hilib ahaana loo soo gadanay. markaad duceysanaysid unbaa un hilib ahaan inaad qaadato mooyaane isaga taran ma gala. haddii laisgarab dhigana oo hal qaado lagu yirahdana, qof kasta wuxuu qaadan lahaa ridow qaadan lahaa. maxaa yeelay faa-iidooyinkeeda badan. nabiga sala allahu calayhi wasalam neefkan uu naadinaya waa orgi. haddana orgi haba iska ahaadee baktinimo ku darsaday, waa bakti. haba ahaadee waa dhega yaryari. walaalayaal, xilligaas neefka dhagaha yaryari carabta agtooda ceeb buu ku ahaa. haddii uu nool yahay xataa suuq wax kasoo gadan lahaa malaha. neef orgi ah oo dhaga yaryar wax suuq xataa kasoo gadin jir malaha. nabigu wuu qaaday, wuxuu leeyahay yaa iga iibsani. 2 dirham uu joogaa neefka. saxaabadii hoosay fiiriyeen. maxaa la gadani walaalayaal? meesha wax qofka gadanaana waa muhiim, waa inaad ogaataa aydan. qofka neefka iibinaya, qofkan ma aamina? qofkan qof khayaano badan miya? neefkan qof soo dhacay miya? yacni waa inaad arrimihiisa si fiican aad ula socotaa. waxa neefka gadaya baayaca
neefka gadayana waa rasuulka sallallahu alayhi wasallam shaki miyaa kaa galaya rasuulka neef uu suuqgii u gadaya shaki kaama galay saxaabadii laakiin way ku dhiiran waayeen neefkii maxaa yeelay dhowr shay ayaa jirta meesha waa bakti waa orgi waa dhaga yaryarahay hoosay fiireen saxaabada labadii dirham hoos ugu soo waa hal dirham yiri bilo aadanka walaalayaal lacag jecel hadda suuq markaa tagtid suuqu wuxuu leeyahay dharka dhar bacdla lagu gadaa jira iyo dhar hudhay ah dharka hudhayga ah sidoo u socda dharkan kale uma soconayaan sababtu maxay tahay dharkan kale waxaa laga yaabaa inay qaali yihiin bilo aadankan asal waxa u ah shayga raqiiska raadsadaan suuqa shayga dharka ah ee 2000 la gadayo hudhayda waxaa laga yaabaa inaad ku heshid 500 ama 200 aad ku heshid saas darteed qofka hudhayda gadaya qoraxdaasoo fadhiya waxa arkaysaa daqiiqooyin ama saacadooyin gudaheedaba way u gadmeen wixii maxaa yeelay xaraash uu ku bixinay xaraash waa raqiis mugtay dadkana waxa xaraash ay jecel yihiin hudhayda saas darteed aad bay u socotaa oo loo gataa maxaa yeelay dhaqaalahana bilo aadanka dhaqaalaha hadii loo sheega uu ka istaagay shaygan dhaqaalihiisa haduu badan yahay uu ka istaagay shaygan dhaqaalihiisa hadii uu yar yahay bilo aadanka uu ku daataa u fiirsaday meel kastaba shayba shayga uu ka dhaqaala uu ka beec yar yahay dadka aad bay u gadanayaan nabigu wuxuu yiri amay dadkan ay maneefkii qaali ku noqday maxaa dhacay maxaa loo aamusay wuxuu yiri waa hal dirham hadan hoos aan fiiri nabigu wuxuu yiri wax u jiraan bismillah wuxuu yiri yaa bilaash ku qaadani bilaashay macna xarash wal xarash ama sheekad ikhwani fillah arin kale muhiim ayaa jirto aan markasta waxaan jecel ugu tahay tusaalooyin oo basiid ah oo wax ku fahantaan inaan idin soo qaado dumarka nyaanyada gadaya oo qudaarta gadaya si fiican u yaqaan dumarka qudaarta gadaya hadeen dhageysanay aad baan idin salaameynaa dumarka qudaarta gadaya walaalayaal siiba dumarka nyaanyada gadaya nyaanyo muraaleeda markay nyaanyada subaxii hore ay soo qaataan aroortii beerahay ku kala hayaan ama meel kale ha ka soo qaataan markay keenaan maanta dhan way gadaya mugtahay hal cilad ay leedahay marka nyaanyada haddii haweenkaas ay kula barid khalaas subaxii ma gadi kartay way bololeysaa nyaanyadan waa weynka oo kale ma aha midaan yaryarta ee muraaleeda ee beeraha laga soo korayo hal habeen kulama joogaysa ayadoo ceerin suuq ma geen kartid wax ka gadanaa malaha waa inaad ayadoo biseel soo gadataa ayadoo biseel hadaa soo gadatina maalintaas waa inaad iska iibisaa haddii habeenkaas ay kula barid wax ka gadanaa malaha dumarkii marka waxaa laga yaabaa walaalayaal inay beec marka hore subaxii hore beec fiican ku gadaan 20 30 ku gadaan mugtaa markaan galabtii la gaara ay weli nyaanyada ay u taala wax badan u yaala caawa hadee bareedana khalaas waa la daadinay maxay sameynaa marka walaalayaal waxay leeyihiin neefkii saaki 20 macnaha goobtii saaki ay 20 ku iibinayeen hadda waxay ku iibinayaan 10 ama 5 ay ku iibinayaan maxaa yeelay waxa ugu daran caawa inay bareeda oo ay halaawad oo la daadiyo haddii shantii xataa wax gatalo waay bilaash ay ku iski maxaa yeelay haddaad qof ku sadaqaysata ayaa kuu dhaama bedelkii caawa intay kula bareeda subaxin aad daadin lahayd طيب nabiga sallallahu alayhi wasallam marka aan soo noqon neefkii dadku waa ku adkaaday hoosa loo soo riday dadku wili ma gadanayaan nabigu wuxuu yiri marka yaa bilaash ku qaadanay nabiga waa xaraasha marka neefka bilaash waa markaad mar le agteyda ha dhaafo yaa iga qaadanay bilaash yaa ku qaadanay subhanallah عجيب صحابة هو سيفين ولي وبلاش العقل معها حدنا صحابة ويسو تاغينينو وحيليين وحكو الجواب نبوالوا يا إيجي إبساني معناها والدي
yaa bilaash ku qaadani saxaabad markaasay ishayn waayeen waxay dhaheen rasuulka ilaahayow kan iska dhaaf waaba dhintee neef dhintay weeyaane isagoo nool xataa suuq wax ka soo iibsan lahaa xataa ma hayn yaa waxaan intay la geeyni waxaan baktiga ah intay la geeyni rasuulka ilaahayow nabiga markuu waa ogaayay sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ma diideen lacag ma ku qaadan weysin bilaash ma ku diideen nabiga markaas wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam la dunya ahwanu ala allah min hada alaykum ufirsun wallahi ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam neefkan orgiga ah ee baktiga ah ee dhagihiisa saan u yaalaan ee aad ka dideen ood ka cararteen ilaahay agtiisa adduunyada way ka liidataa neefkan uu yiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam haddii adduunya iyo neefkan lisgarab dhigi lahaa neefkaanaad qaadan lahaydeen ayuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam haddaba maxaan ka fahmaynaa qisada walaalayaal qisada waxaan ka fahmaynaa adduunyada ilaahay agtiisa qiimaha ay ka leedahay ilaahay agtiisa adduunyada neefkaas way ka liidataa ayuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam isku darajo ma aha u fiirsa isku darajo waay neefkan haddii la dhila waxba ahaan lahayd neefkan baktiga ah ee dhagihiisa saan u yaal ee orgiga ah way ka liidataa adduunya neefkaanaad ku carar naf kula cararo noqon lahay neefkan uu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam anagana maanta walaalayaal adduunya ayaan daba dhilif u noqonay meeshii adduunyana loogu sheegaba waa u saxi qaadanaynaa tahriiban u galaynaa shilin meesha lagugu sheegaba waad ku dhimanaysaa ma fiirinaysid maxaa kaa soo gaaraya caqabadaha aad maraysid aakhiradaada inaad seegaysid diintaada maxay u dhimaysaa waxaasoo dhan anagoo fiirinayna ayaan jiiraynaa oo marle waxaan leenahay waxaan ku cuninba waa la cunahay maxaaraanba maxalaala uma aabiyeleen walaalayaal haddaba nafteydii naftiin waxaan u dardaarmayaa inayn adduunyadan aan isku mashquulin walaalayaal aakhare inayn u shaqaysano aakhare inayn gacanta midigta aan ku qaban adduunyada gacanta bidixda aan ku qaban walaalayaal marka dardaarankeena waxaa waaye oon isku dardaarmaynaa nafteyda ay ugu horeysa ilaahay subxaanahu watacaala hana cafiye dhammaanteena adduunye ayaan idinkaga digayaa ayuu yiri nabiga markuu dhimanaya muxuu dhahay nabiga adduunye ayaan idinkaga digayaa in idinla fura kadibna aad ku tartamtaan sidii ummadihii idinku horreeyeyba ay ugu tartameen kadibna ilaahay uu ku halaagay ayaan idinkaga cabsanayo nabiga sallallahu alayhi wasallam marka hadda walaalayaal ilaahay subxaana adduunyadan wax kastaba way qoran yihiin arsaaqdaada way qoran tahay marka arsaaqda waxba ha isku dhibin shayga ilaahay uu ku ballan qaaday waqti badan ha gelinin ha ku murgina ha ku rafaadin shayga aan lagu ballan qaadin oo jannada ah inaad galaysid in kale aan la hubin shaygaasaa mudan in lagu dadaalo walaalayaal haddaba halkaas ay inoo joogta intaasaan idina jeclaysta ama soo galay waxaan maleynayaa in badan inaad ka fahanteen faa'iidooyinkaasna way ku jiraan faa'iidooyin fara badanna way ku jiraan marka insha allah idinkaan idin daayay faa'iidooyin kale intaan ku kulmayna video kale oo xiga oo walaalkiina hada wabillahi tawfiiq wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam